dhageystayaasheena sharafta badan ee la socday sheekadeenii tixanaha ahayd ee ahayd isirtee ileen waa la qabay. Fadlan haddaad daawatay labadii qaybood oo u horreeyay, tii saddexaadna watana aysan ku dhaafin maalin walbo ayada oo muuqaal ah. Waxa ay sheekada noo maraysay Maxamedow su'aashii ay waris weydiisay weli aan ka jawaabin, iyo gabar hortooda soo istaagtay. Talow maxaa dhici doona? Dhegeysi wacan. Waxaa horteenna soo istaagay gabar ka mid ahayd hablihii ka adeegayay baarka. Waxa ay noo keentay dalabkii aan u dirsanay. Aniga waxa ay ii keentay shaah iyo sandwich ka samaysan khudrad iyo malay. Warisna waxa ay u keentay jibs with chickens. Thanks ayaan ku yiri gabadhii adeega noo keentay. Waxa aan rabaa inaan kuu sheego saxardiidow, markii aan runta kala hadlo waa sida aad sheegtay. Aniga Allah waxa uu i siiyay qurux inta ugu filan. Hase yeeshee aaway ninkii aan isku aamini lahaa. Waad ogtahay xiliyadan dambe raggii waxa ay noqdeen waraabayaal. Waadna ogtahay waraabuhu hilibku waa inta uu ka arkayo horuu ka dafayaa. Inta ay qosol ku dhufatay ayay misna tiri ninkii hanan lahaa adiga laga rabaa ee ka jawaab su'aashaas. Xaqiiqdii waan rumaysanahay hadalladii ay ii sheegtay waris, maxaa yeelay waxa ay u muuqatay gabar aad u degan. Waxa ay ka mid ahayd macaamiisha si joogtada ah lacagaha ugu qaadato xarunta xawaalada ee aan ka howlgalo, khaasatan konteendarka ee aan lacagaha ka bixiyo ayay si joogto ah ugu xirnayd. Intaan dusha ka aqaano weli kuma arag xadgudub dhacdhac ama fudayd. Bishii ay ugu yartahay waxa ay qaadan jirtay $700. Bilaha qaarna waxaa loo soo diri jiray ilaa $1,000. Inta badan lacagaha waxaa u soo diri jiray nin jooga waddanka Australia. Mar kaliya ayay niyadeyda ku soo dhacday waxa ka dhaxeeya ama uu u yahay ninka, maadaama ay tiri xaas ma ihi cidna saaxiib lama ihi. Waxaan sii raaciyay waxaad tahay luul iyo dahab. Waxaad tahay qof aad u sharaf badan. Waana runtaa waxa aad ii sheegtay, laakiin waxaad xisaabta ku darsataa in aadmigu iskugu jiro dad xun iyo dad wanaagsan labadaba. Ragguna waa sidaas oo kale. Inta iri ayaan ugu sii daray su'aal ma ku weydiin karaa warisay. Inta qososhay ayay tiri caawa maxkamad miyaan saarnahay. Anigu inta aan muusooday ayaan ugu jawaabay haddaan aniga maxkamad ku saaro dhib miyaad u aragtaa? Maya. Inta ay tiri ayay ii sii raacisay saaxiib su'aasha doonto i weydii. Aniga ma hakane waxaan ku iri horta in wax la is weydiiyo ma xumee. Yaa weeye ninka aad lacagaha aad qaadato kuu soo diro? Inta qosol ku dhufatay ayay iigu jawaabtay alla saxardiidow, su'aashaad hayso ma midda oo kaliya ah? Way badan yihiin su'aalahayga, balse markii hore taas ka jawaab ayaan si degdeg ah ugu celiyay. Waa walaalkay aan isku hooyanahay. 3 gu oo kaliya buu iga weyn yahay. Waxa uu ku nool yahay dalka Australia. Axmed Yare waa walaalkay si aad aan u jeclahay, waana ku faanaa. Carruurteena oo dhanna waa uu iga jecel yahay. Intaa markii ay i tiri ayaan ku iri reer miyuu leeyahay? Maya, laakiin dhawaan ayaan rabnaa inaan u guurino gabar aan ilma habreednahay oo joogto Soomaaliya, ayay hadalkeedii ku soo koobtay. Sheeko aad u macaan oo u badneed halka ay ku nooshahay iyo cidda ay la nooshahay ayay sii bilowday. Waxa ay ahayd runtii sheeko aad u macaan. Isbarasho ayaa habeenkaas dhex martay intii hore ka badan. Waxaan ku qancay dhammaan jawaabihii ay iga siisay weydiimihii aan weydiiyay. Waqtigu uu socday, saacaduna waa abbaaro 5 saac oo habeenimo. Saacadda ayaan mar kale eegay. Waxaan ku iri waris, caawo miyaan halkaan seexanaynaa? Inta qososhay ayay tiri maxaad ka daahaysaa oo aad uga cararaysaa xaafadda mise waa lagu joogaa? Kaftankeenii ayaan sii wadanay ilaa habeenka kala barmay. Saacaduna isku xirtay 6 saac oo habeenimo ee saqda dhexe. Cabbaar kadibna waxa aan u soo laabanay xaafadaheena. Dabeecad uma lahayn in xilliga aan ka maqnaado gurigeyga ama aan ku soo gaaro hurdo la'aan. Waa dhaqan igu cusub, maxaa yeelay uma baran in aan soo joodo saacadahaas oo kale. Maxaa yeelay waxaan u kalihi jiray suuqa. Markii aan daaho waxa aan seexan jiray
4 saac oo habeenimo. Waxaan isu diyaariyay inaan seexdo. Haba sheegin. Waxaan dhex maquurtay xusuusiyo inaan dib u soo celiyo sheekadeena dhex martay aniga iyo Waris. Waxa aad ula yaabanahay sida aan ugu fikirayo gabadhani cusub ee aan sida dhabta u aqoonin. Waxaa maskaxdayda ku go'i waayay kaftankeeda iyo qosolkeeda. Cabbaar sida aan u galgalanayay sariirta, hurdana ay iga imaan weysay, ayaan maqlay aadaamkii salaada subaxda. Subxaanallah inta iri ayaan yaabay. Waa habeenkii ugu horeysay ee noloshayda ee aan soo jeedo aadaamka igu yeero. Salaadii subax ayaan u kacay, shaqadeydii ayaana isu diyaariyay. Waris iyo anigu waxa aynu noqonay 2 ruux oo aad isu xiriiriyo. Joogto ayuu noqday kulankeenu. Habeen haddii aanan kulmin, waa qasab inaan habeenka xiga kulanno. Waxaan u qaaday jacayl dhaba. Waxa aanan dareemay wax ka bedelan noloshii hore. Waxa aan mar walba ka fikiri jiray ayada, markii aan shaqada joogo, markii aan guriga joogo, iyo markii aan dhabada hayo, iyo weliba markii aan asxaabteyda la joogo. Habeenada ka mid ah anaga oo wada socono oo marayna dhabaha u dhaxeeya wadada 6 iyo tan 7 ee xaafadda Islii ayaa waxaa naga hortimid gabar dheer oo xiran xijaab madow. Dhagaystaheena sharafta badan, la soco qaybta 4 iyo wixii dhici doono insha Allah. Waan idiin soo diyaarin doonaa. Fadlan ha iloowina inaad channelka subscribe saartaan, gambaleelkana furataan si aad u noqotaan daawadaha u horeeyo daawada fiidiyoyaasha aan soo dhigno. Waad mahadsantihiin.